markastoo la soo qaado amaba aynu maqallo hadallada siyaasadda ah ee kaftankuna aanu ka madhnayn ee soomaalida waxaa dad fara badan maskaxdooda isla markiiba ku soo dhaca ilaahay ha u naxariistee faarax galooley faaraxna muu ahaynu nin sameeya kaftanka runtana xige ee siyaasadda ee waxa uu ka mid ahaa baarlamaankii rayidka ahaa ee soomaaliya oo isaga qudhiisa ayaa ahaa nin siyaasi ah ka hor intii milatarigu aanay la wareegin xukunka dalka soomaaliya haddaba taariikhdii iyo hadalladii kaftanka siyaasadeed ahaa ee laga reebay ilaahay ha u naxariistee faarax galooley ayaa waxaan ka waraystay inanka uu dhalay ee ismaaciil faarax galooley oo deggan magaalada dublin ee xarunta waddanka jamhuuriyadda irishka laakiinse aan ku waraystay mar toddobaadkii tegey uu soo booqday magaalada london wallahi cabdisalaanow abahay alla u naxariiste dadku siday aad ugu wada yaqaaneen dadku hadda waxay aad u maqleen anuu saan filaayo berigii xukunkii ugu dambeeyey soomaalida ahaa 1960 militariga xilli la hadli karay haye ama qof isqaadi karo inuu maaragtay si muwaadinimaa u sheego dadka waxa dhibaya saas markaasay dadku hadda aad u wada barteen laakiin taariikhdu waa ka horreeyeen oo haddii la ku samagol yahay berigii 1941 markuu ingiriiska soomaalida soo galay xamar dalka yimid ilaa 49kii gobonnimadoonkii leegadii konton ilaa 56dii kadibna ilaa iyo baarlamaankii dambe oo ahaa baarlamaanka wuxuu ka mid ahaa 64 ilaa 69kii marka waxaa ugu darnayd marka dadka dhibtu markay dhacday sanooyinkii ugu horreysay markii raashinka la weyn jiray waxaayo dadku isan waxa xataa beeraha ay ka tacbadaan ayn gurigooda keensan karin marka dadka markay yidhahdeen adeer faaraxow dee dawladdii waa isbedeshay tooradaa timid oo musuqmaasuq waa dhammaadeen ha yidhi tooradu waa dadaalaysaa jid badan bay samaysay maaragtay cagtii bay meel u heshay laakiin calooshii bay meel u laadahay dadku wuxuu cunamaystay cagtii bay meel u samaysay buu yidhi waa jidadkii buu sheegayaa laakiin calooshii meel u laadahay marka yaa soconaya dariiqa yaa maraya marshabiyadiga hadduusan dadkii maaragtay isha wax cuna haysan waa tay iyo markan beeraha maaragtay beeraha la tacbaday oo beertii la tacbanaya saliidii macsarada waxay noqotay suuq madow waa tay galleyda caddeeda waxay noqotay suuq madow marka waa tii yidhi beeraha raashin ka socdo toos ADC ha loogu wareejiyo haye markaas dib ha uga gado beeraleydii marka lama soo gelin karo kontaroolada xamar yacni galley ama saliid marka wuxuu yidhi hadda galleyda iska soo karsada dawladda galley ceeriin bay diiday gareen bisel ma diideen war hadda niyow dadku qof walba waxbuu maqlay horta cabdisalaanow isaga anuu hadda intaan kaaga hadli karo waxay tahay yacni siyaasadda waxay ku salaysneed baarlamaanka hore 60ka clanic baarlament uu ahaayo qabaayil baa lasu soo dooran jiray marka waa fariimaha laysu fari jiray middan kale ee militariga ay timidne dadku waa wada caburnaay oo lama wada hadli karin marka waxaa jirtay aniga xasuusan karaa yidhi mar la yidhi guryihii baa dawladda la wareegaysaa president maxamed siyaad barre waa is arki jireen marka wuxuu yidhi war maxamedow adduunyada 3 baa ilahay laga tuugaa waa tay ilaahu yaa 2 jir ku indhabeelin 20 jir aanan ku tabarbeelin oo 60 jir aanan ku xoolo beelin waa tay laba markaad jirto aad indhaha beeshaxmaada arkid cabdisalaam waa xaqiiqa 20 markaad jirto aad shaqaysan laadahayna waa dhifteedii 60 markaad ku xoolo beeshay meelaad ka bilowda ma joogtid marka waxay waranaga labada hore ilaahay wada soo dhaafiye aduu midaan saddexaad qaflatan lagu qabano aan kirada ka aruursano meesha patient ma jire waa tay ismaaciilow aabbaha faarax galooley nin sideeya buu ahaa dabeecaddiisii maxaad ka tilmaami karaysaa cabdisalaanow waxaan aniga ku soo gaaray aniga 19 jir baa ahaa allah naxariistay markuu dhintay anaana ugu dhawaayo maaragtay ku dambeeyey gaariga ku waday jawaabihii uu diyaarka ahaayo maaragtay uusan ka fikerayn markii wax la weydiiyo iyo halabuurkale yacni halabuurka kulleyba isku si looma wada yaqaano annaga carradaan ka imaanay bahal afrey la yidhaahaa maaragtay iyo shiri baa jira iyo gabayo waxaa jiro oo maaragtay haasaawga ahaa iyo oo habeenkii iyo fariimo kale la soo jiray waxay aad maaragtay ii sheeg isku ahaayeen
farriimo isu diri jireenay kuwada gabyi jireen nin la yidhahdo qashow mahde allah u naxariistee waatay ismaaciilo maxaad ka xasuusataa markaa afareyda uu tuuran jiray afareyda uu tuuran jiray marka uu dadka uu la hadlayo maaragtay tolka markuu la hadlayo baarlamaankii wixii ahaa uu dhihi jiray nin buka waa la baaniyaa buddeyda aniga baarlamaankaa la geeyo oo hallay doorto waa tii ololaha doorashada uu ku geli jiray taas haa waxaa kala jira bulshada jawaabihii diyaarka ahaayo marka مثلا 1974 waa 74 ها 74 iyo 75 waxay ahayd ma xusuusta mar dacwad loo qabsado la yiri hadalkaaga waa kacanka ku batay marka wuxuu yiri hadalkii kacanka oo badanne ayaamahan baa xiisadu laba meel saaran tahay waa anigii magaalada la yiraahdo berberba waa nala masabidaya way berberna saldhigno aanan ku oolin baa lagu sheegayaa ana waraan sheegaya lagu sheegaya marka laakiin farqiga wuxuu yahay berberraadi isku beenisay qabtaa anigu waxaan isku beeniyaa hay waxaad ka warantaa ismaaciilo markaa sidaa tilmaamayso ama odayga laftiisuba uu sheegay allah u naxariistee ma jireen hadallo isagoo aanu lahayn oo lagu shaambadayn jiray oo kale waa lahaayeen wax badan baa jiray waa dadku ma hadli karin ma dad waxyaalo badan maxaan ku raay sheeg oo loo saarin jiray marka isaga wuxuu jiray warkayga waa weeyay laakiin aniga ma dhihin warkayga waa weeyay laakiin aniga ma oran waata ismaaciilo waxaad ka warantaa ma dhinaca siyaasaddu baa badanaa markaa hadallada markii dambe halhayska noqday ee aabbaha loo tirinayo Faarax Galooley ma dhinaca siyaasaddu bay ku salaysnaayeen mise nolosha waxyaabaha kalena waxbu ka oran jiray aniga waxaan wahay badan karaa in dhinaca siyaasadda dad baa joogsi isaga qaadanaya oo maaragtay laakiin xigmadda marka ay fahmaan meesha ay u socoto sanadkii ugu dambeeyay haddii la ku samagul yahay dawladdu masalan markii oran jiray bacad celin baa la aadayaa oo bacadka maaragtay lagu tilaala dadka dhibaatadooda ayuu aad uga hadli jiray war bacadkan ma insi lagu wareejiyo inta iyada waxa aan la arkin يعني نوعاasay ahayd iyo waxtar kale badan waa jiray maartay oo marka wuxuu leeyahay in haddii lagu wareejiyo bacadka bacad celinta loo sameeyay wala waaya waa isagoo aanan qofna uga dan lahayn laakiin dadkii dhibta haysata muwaadinka waa inuu ka hadlaa dadka dhibta haysata waa hagaagkaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Faarax Galooley